waxaan gudaha kaga jiraa mid ka mid ah saldhigyadii daraawiishta ay ku lahayd deegaankan oo dalyare la yiraahdo muhiimna u ahaa halgankii gobonimo doonka ee daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu hogaaminayay daartan waxaan noo sheegay 110 sano inay jirtay markaasna in Soomaalidu ay ama inay daar dhisato laftirkeeda waxay ahayd horumar aad u weyn balse sharaxaadda iyo sahanka iyo sababta ay halkan uga dhisteen runtii macno xagga dagaalka iyo istiraatiijiyadii daraawiishta yay kamid ahayd in halkan saldhig laga dhigto ilaa haddana waa ay daartii dhisan tahay inkastoo iska burburtay oo aysan qurux badnayn balse haddana waa daar dhisan waxyaabaha ayaan darrada ah nasiib xumada ah waxa weeyaan in Soomaalidu inta badan taariikhdooda ay ka sheekeeyaan oo kaliya oo aan la kaydinin lana ilaalin oo wax lagu daray daraawiishta kadib aysan jirin dhagaxan uu daraawiishki sameeyay inaanan looga dambaynin oo aan la ilaalinin oo laga dhigin meel ay dadku ku faanaan Soomaalidu wax way qortaa in badan wayna ku faanaan oo dad badan baa xafisan taariikhdii laakiin lagama faa'iideeyo lama kaydiyo oo ma ahan meel milga ahaan loo fiirsado waxaan taaganahay tog caan ah oo dalyare dhinacan ka mara togan waxyaabaha cajiibka uu ku yahay waxa kamid ah weligiis ma gurin baa leeyahay meel ka yimaado lama garanayo waa wax rabaani ah waxyaabaha daraawiishta halkan inay talis ka dhigato ay ugu xulatay beena kamid tahay sooley hada sooley waxa laga yaabaa qiyaas ahaan in daraawiish badan ay togan ama biyo ka cabeen ama ku weyseysteen wanaagsan heesiyo fardiyo maybankiyo luuli hadiya deeqaho iyo wax dhiib horaa la geynteeda hanaan quruxsaha shaar go'aad hodon dariiqaale halaal runaa daraawiishta iyo weli hanoolaale jooga ay noo sheegeen ka duwan xabaarihii kale xabaasha madafkaysa waxa laga yaabaa aqal sano ama 100 sano ka hor in qofka la aasay Allahu naxariisto laakiin hadda ma sheegay in dambas iyo caanaha isku qasay waana sababta weli u adag yahay oo uusan burburin carradana ma arkaysid halaal runaa daraawiishta iyo weli hanoolaale استعمالان مثلنا وذكرنا استوقف وياهي بس فرق وين أيام الحياة حماشة ترويش أسكو بأسي هاي runtii magac weyn iyo taariikh bay ii leedahay shakhsi ahaan inaan maanta booqdo oo indhahayga ku soo arko dhax socdo mid ka mid ah waxyaabaha astaanta iyo muunada u ah dadka Soomaaliyeed oo ah mid ka mid ah saldhigyadii halgankii gobonimo doonka ee daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Nuur